aanu ku bilownay madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar iyo afar xubnood oo kale oo sarsare oo maamulkiisii ka tirsanaa ayaa maanta waxaa maxkamad lagu soo taagay magaalada Addis Ababa. xubnahan la soo taagay maxkamadda sare ee federaalka Itoobiya ee dowladda Goorir waxay sheegtay in loo haysto inay galeen dambiye ka dhan ah xuquuqda aadanaha sayeshay lama oga waxa maanta lagu soo odeeyay. haddaba dhinaca kale dowladda Itoobiya ayaa waxay sheegtay in la asaasay xafiis qaabilsan dib u dejinta iyo waliba hubka dhigista ururada mucaaradka ee hubaysnaa ee nabadda qaatay. haddaba si aanu umurahaasi wax badan uga ogaano ayaa waxaanu khadka taleefanka Addis Ababa Goorir kula xiriiray wariyahayaga Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam oo faafahinteena siiyay. adtaxaw taado taaba isniintii aan soo dhaafnay ayaa Cabdi Maxamuud Cumar gurigiisa laga soo qabtay waxaana sharci u dhigayaa in 48 saacadood inta ayna dhamaanin maxkamadda la horgeeyo qofka eedeysanaha. marka taaka waxaa la keenay maxkamadda guud ee federaalka ee waddanka Itoobiya ee ku taala xaafadda Dooreedood waxaana ku weeriyay keenitaankiisii afar mas'uul oo wasiiradiisii ka mid ah oo todobadii maalinka dhaweyd xasaanada laga qaaday ka mid ah. haddaba taas ayaa taaka loo keenay maxkamadda horteeda waxaana si rasmi u furmay faylkiisii isagii iyo mas-uuliyiintaasba. Cabdinaasir mar haddii madaxweynihii hore iyo xubnaha muhiimka ahaa ee ka tirsanaa maamulkiisii la keenay maxkamadda ma ognahay dacwadaha lagu soo oogay waxa ay kala yihiin. adtaxaw hadda si rasmi ah waxaa u furmay faylkoodii ama kiiskoodii maxkamadda lagu daba waday mana ayna nin hadda wax lagu eedeynayo oo waxaan islaahay ujeedada taaka loo keenay waxa weeyaan in la furo faylkii Cabdi Maxamuud iyo saraakiisha la socotay ee wasiiradiisa ah. laakiin adtaxaw waxaad ogtahay in dowladda federaalka in badan iyo weliba hay'adaha madax banaani lagu eedeynayay Cabdi Maxamuud in uu galay ku takrifal awoodeed iyo weliba in dhaqaalihii waddanka iyo miisaaniyadii waddanka sidii kumbani isagu leeyahay oo kale uu la dhaqmay inuu asaasay urur xasiloonida waddanka lid ku ah oo la yidhaahdo heego. waxaa kaloo intaasii dheer in hay'adaha xuquuqul insaanku ay ku haysteen falal bini-aadamnimadka ka dhan ah inay Cabdi Maxamuud lagu haystay oo in badan lagu eedeynayay. laakiin qodobadaasi iyagoo jiraan haddana ma jiro taaka wax lagu eedeeyey. waxaan ka warsugaynaa isbuucyada soo socda waxa lagu daba qaado isaga iyo weliba raggan la suntan ee wasiiradiisa ahaa. Cabdinaasirow dhanka kale dowladda federaalka Itoobiya waxay sheegtay in la aasaasay xafiis dib u dejin loogu sameynayo xubnaha ururadii hubaysnaa ee nabadda qaatay. marka maxaan xog dheeraad ah arrinta ka haynaa? xafiiska xidhiidhka dowladda waddanka Itoobiya federaalka ayaa saacadun ka hor wuxuu soo geliyay in la aasaasay xafiis gooni ah ururadii hubaysnaa ee dhawaan loogu baaqay nabadda isla markaana hubkooda la soo galay. marka laba qodob ayaa meeshan ugu xoog badan in hubkooda ay ka dhigaan oo si nabada ay isaga dhigaan isla markaana qalinka iyo fikirka ay ku dagaalamaan suu dhawaanba sheegay ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed markuu shirkiray sabtidii hore qabtay iyo in dadka ururka ka tirsan ee raba inay ama ciidan noqdaan ama shaqaale dowladeed noqdaan dib u dejin iyo shaqo abuur loo samayn doono. marka ururadaas oo badnaa ayaa waxaa kamid ah Arbanyooj, Kumbuut, Sabaad, ONLF iyo OLF kuwa ugu badan ee carabka lagu qoro ee hubkoodana la soo galay ayaa kuwaas ah. Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam ayuu kaasi ahaa wariyahayaga waddanka Itoobiya oo isagoo Addis Ababa jooga khadka taleefanka ugu warramay. haddaba Facebook ay dhageysanada raayigooda warbixintaasi kaga soo dhiibteen. Maxamed Cawil Maxamed oo Boosaaso jooga waxa uu leeyahay maxkamadda maanta la soo taagay mas'uuliyiinta uu ka mid yahay madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar. runtii anigu waan soo dhaweynayaa waayo eedaha loo haysto waa in waaqiceeda laga qaadaa maadaama lagu eedeeyay arrimo ka dhana xuquuqda aadanaha. Faadimo Cabdi Jimcaale oo ay ka raay doontaa waxay leedahay waxaan joogaa magaalada Gaalkacyo maxkamadda la soo taagay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar waxaan u arkaa bay leedahay inay tahay bahdil lagu sameeyay dadka ka soo jeeda deegaanka